waxay ahayd maalin weyn oo dhulka soo martay kumanaan sano ka hor waxaana Ilaahay aqbalay ducada nabigiisa Nuux calayhi salaam waxaana biyo soo burqaday moofadii Ilaahay calaamad uga dhigay bilowga halaaga qoomkiisa isagana lagu amriyay markaas inuu doonta fuulo inta kadibna waxay samadu soo furtay albaabadeeda dhulkuna wuxuu soo daayay biyihiisii waxaana kulmay biyihii cirka iyo dhulka waxayna ka sare mareen buuraha Ilaahayna wuxuu badbaadiyay Nuux wiilashiisii iyo mu'miniintii la socotay waxayna fadliga Ilaah ku dhex qaadayeen mawjado sida buuraha oo kale ah xaalkuna sidaas u ahaa maalin aanu Ilaah gaaladii dhulka cidna kaga tagin waxaana sidaa ku dhammaaday cahdigii hore ee basharka waxaana bilowday kii labaad uguna dambeeyay waxay ahayd doontu mid ku ilaashan kuna soconaysa magaca Ilaahay intii duufaan ku socday oo dhan ilaa ay biyihii cirkuna istaageen dhulkiina oo dib u liqay ay doontiina ku dul nagaatay buurta Joodi inta kadibna waqtiga badan kadibna la waayay raadadkii doontaas maxay tahay qisada doontii Nabi Nuux calayhi salaam halkaysa ay ku qarsoontay muxuuse ahaa shakligeedu ama qaab dhismeedkeedu iyo qaabka loo dhisay kaasoo ku socday waxyi toos ah oo rabbaaniya su'aasha dad badan raadinayaan waxay tahay halka ay ku taala buurta Joodi ee ay istaagtay doonta Nabi Nuux calayhi salaam waxaynu dib ugu noqon doonaa kumanaan sano ka hor si aynu dib ugu furno baaritaano la sameeyay oo la xiriira doontii Nabi Nuux calayhi salaam taasoo Ilaahay saacad ugu sheegay quraanka waxaanuna idin soo gudbin doonaa qisada bilowgii dunida waa qisada doontii Nabi Nuux calayhi salaam Nabi Nuux wuxuu habeen iyo maalin dadkiisa ugu yeedhayay diinta muddo 100 sano ah in yar oo ka mid ah dadkiisa ayaana rumeeyay haddana waa uu u sii samray oo wuxuu ku adkaystay inuu ugu yeedho diinta laakiin way iska weynaysiiyeen wayna ku jeesteeseen waxaana sii kordhay nacaybkay u qabeen Nabi Nuux inta kadib uu habaaray qoomkiisa waxaanu Ilaahay ka baryay inaanu gaalada mid ka reebin haddii kale ay muslimiinta baadiyeyn doonaan oo aanay gaal mooyaane wax kale dhalayn waxaana Ilaahay Nabi Nuux calayhi salaam waxyooday inaan muslimiinta inta hadda rumaysay mooyaane Nabi Nuux cid kale rumayn doonin sida liashligeed waa marka uu Nabi Nuux Ilaahay ducada weydiistay waxaana Ilaahay u waxyooday Nabi Nuux inuu sameeyo doon taas oo qaabka uu u dhisayna loogu sheegay waxyi ahaan waxaanu bilaabay dhismaha doonta iyada waxyi ahaan loogu sheegayay iyada oo leh dhammaan tayada iyo ballaadhka ay xaaladda soo socotaa u baahan tahay iyadoo ku habboon dhammaan nooleyaasha kala duwan ee ay qaadi doonto mar ibnu Cabbaas wax laga weydiiyay fasiraadda aayadaha ku jira suuratu Huud ee ka waramaya in Nabi Nuux uu doonta ku sameeyay waxyi xagga Rabbiga wuxuu yiri Ilaahay waxa uu waxyooday nabigiisa inuu doonta sameeyo sababtoo ah ma uu garanin qaabka uu u sameynayo waxaana Ilaahay u waxyooday inuu u sameeyo sida xabadka shimbirka waxayna sidoo kale bilaabeen muslimiintii raacday inay ku caawiyaan dhismaha doontaas iyaga soo ururiyay jiridaha iyo laamaha dhirta waxayna alwaaxdii ama looxaantii u sameeyeen xajmiyo kala duwan iyagoo isugu xidhay masaabiir wuxuuna waday dhismaheeda muddo aad u dheer waxaana lagu sheegaa inay ahayd 80 sano muddadaasna kamuu nabadgelin gaaladii inay ku jeesteesaan isagoo isna u sheegaya cadaabka sugaya iyo waxay sameyn doonaan sanado badan kadibna waxa ay noqotay doontii mid diyaar oo dhammaystiran waxayna ahayd dhisme aad u weyn waxaana la sheegay balse Ilaahay baa u cilmi badan inay ka koobnay 3 dabaq iyadoo ka u sareeyana uu ahaa ka shimbiraha ka dhaxena ay galayeen dadku ka u hooseeyana loogu talagalay nooleyaasha kale oo dhan waxaana uu noole walba ka soo qaaday 2 jinsi oo kala duwan markay timi saacadii qaabtuna Nabi Nuux wiilashiisii iyo mu'miniintii la socotay waxay koreen doontii markay moofadii ka soo burqadeen biyuhu waxaan ka ahayn xaaskiisa iyo inankiisa Kancaan iyadoo labadaasi aanay rumaynin waxaana dunidii qarqiyay biyo
kadib markay samadana soo daysay biyaheedii dhulkuna uu soo burqaday biyihii ku jiray. waxayna doontii dhex qaaday duufaanka iyo hirarkaas waaweyn iyadoo ku soconaysa magaca Ilaahay. waxaana la yidhi Ilaahay baa u ogaal badane waxay sida ahayd ilaa 150 casho, mar kalena 180 casho, ilaa amarkii Ilaahay fulay oo wixii dhulka ku noolaa la qarqiyay. waxaan ka ahayn mu'miniintii Nabi Nuux raacday calayhi salaam, ayna ku dul nagaatay doontii buurta Juudi sida Ilaahay quraanka ku xusay. waxaynuna baadhaynaa halka ay ku taalo buurtaasi. waxaana uu Mujaahid yidhi kadib markii duufaanku dhacay buuruhu waa ay wada qarqoomeen oo biyaha ayay hoos mareen. waxaan ka ahayn buurta Juudi, waana halka ay doontii Nabi Nuux calayhi salaam ku degtay markii dambe. waxaana uu Qataada yidhi Ilaahay wuxuu inoogu baaqi yeelay jasiiradda Carabta aayad iyo shay ku cibro qaadasho mudan, bimacnaa weli waa sideedii doonta oo jasiiradda Carabta ayaa ay taallaa. laakiinse waxaa jira khilaaf ku saabsan halka ay ku taalo buurta Al-Juudi. waxayna Carabtu u yaqaanaan buurtaas magaca ku jira quraanka ee ah Al-Juudi, halka reer Faarisna ay u yaqaaneen buurta Nuux, halka Turkiguna ugu yeedhi jireen Kardaaq oo micnaheedu yahay buurtii janjeedhay ama foorartay, halka Kurdiyiintu u yaqaaneen Kaardo. Giriiguna waxay ugu yeedhi jireen Joordaa. balse muhiimaddu waxa weeye goobta ay ku taalo buurtaasi wayna fara badan yihiin aaraa'da iyo isku dayada laga bixiyay. waxaana uu Asfahaani yidhi buurta Juudi waa buur dhacda jasiiradda Carabta, waana mid ka mid ah 2 buurood ee dhaca dhulka reer Dayi ee uu ka soo jeeday Xaatim Daayi ee caanka ku ahaa deeqsinimada. balse waxaa jira hadal kale oo kullida kaasoo sheegay inay ku taalo buurtaasi silsilad buureed taasoo lagu magacaabo Kaadiriin oo ku taala deegaanka Jasiiratu Ibn Cumar ee dhacda bariga webiga Dijla, una dhow magaalada Mawsil ee Ciraaq. waana ra'yiga 2 saxaabi ee Mujaahid iyo Qataada, Ilaahay labadooduba raaliha ka noqdee. waxaana uu sheegay caalamkii ummadda ee Ibnu Cabbaas in buurta ay ku nagaatay doontu inay dhacdo magaalada Mawsil ee Ciraaq. waxaana ra'yigaas qaba saxaabigii weynaa ee Daxaak. waxaana jira cadaymo iyo daliilo kale oo leh buurta Juudi waxa ay dhacdaa deegaanka Shirnaaq oo ah deegaan ku teesan xuduudka uu Turkigu la wadaaga Ciraaq iyo Suuriya. haddaba si aynu u ogaano halka ay dhacdo buurta Juudi waa inaynu raacnaa raadadkii doontaasi cilmi baadhisaha iyo daahqaadyada la sameeyay. waxay sheegeen in badan oo ka mid ah dadka cilmi baadhayaasha ahi in buurta Juudi ay ku taalo deegaan ka tirsan Turkiga oo loo yaqaan Shirnaaq, una dhow xuduudka Suuriya iyo Ciraaq. waana mid ka mid ah buuraha ugu dheer ee ku yaala dalka Turkiga. waxayna asal ahaan raacsisnayd waddanka Ciraaq ka hor intaanay isbedelin qaab dhismeedka maabka wadamada waqtiyadii kala dambeeyay. waxayna sheegidda iyo helidda raadadkii doontii Nabi Nuux ku timi qisada nin ari jira Kurdi ah bartamihii bishii May 1948 magaciisuna yahay Rashiid Sarxaal, kaasoo sheegay inuu helay raadka doon weyn oo dhagaxawday guudka buurta Juudi. dabadeedna kadib waxaa gaaray dhowr safar cilmi baadhisyood oo kala duwan kuwaasoo baadhay looxaantii dhagaxoobay iyagoo adeegsaday raadiyo kaarboon ama shucaaca kaarboonka. waxaana ay sheegeen in la sameeyay ku dhowaad 4500 oo sano ka hor. waxayna ahaayeen sawirada qalabka raadaarku qaaday qaar muujinaya ilaa 75 fiid oo xagga hoose ah. waxayna si cad u muujisay qaybihii gudaha ee doonta iyo inta qaybood ay ka koobnayd. waxayna xaqiijisay dowladda Turkigu inay heshay goobtii doonta iyadoo sheegtay inay ilaalinayso weliba ilaalin dawliya. markaynu eegno hadallada mufasiriinta iyo aimada muslimiinta sida Ibnu Cabbaas, Mujaahid iyo Qataada, waxaynu arkaynaa inay dhammaantood xuseen in buurta Al-Juudi inay ku taalo hareeraha Mawsil, halka baadhitaanadii dhowaan la sameeyeyna ay sheegayaan inay dhacdo dalka Turkiga, weliba gobolka Shirnaaq ee dhaca xadka Suuriya iyo Ciraaq. haddaba si aynu midhaasiis u waafajino waa inaynu dib u jaleecno khariidadihii hore ee Ciraaq, gaar ahaan magaalada Mawsil. welibana haddaynu dib ugu noqono casrigii Umawiyiinta oo ah xilligii ay sheegeen aimada muslimiinta goobta ay buurta doontu ay ku xidhatay ay dhacdo, waxaynu arkaynaa inay magaalada Shirnaaq ay hoos iman jirtay magaalada Mawsil, balse ay tahay maanta qayb ka mid ah Turkiga. tani waxay si weyn inoo tusaysaa meesha ama halka ay doontu istaagtay.
waxayna waafaqsantahay halkii ay ku sheegeen sida ibnu Cabbaas iyo Daxaak ayna ku waafaqeen Mujaahid iyo Qataada Ilaahay dhammaantood raaliya ka noqday. waxayna mantiqadan markii hore ahayd mid ka tirsan jasiiradda Carabta waqtigaas. sidaa awgeed waxaanu leenahay buurta Al-Juudi oo ah halka ay ku xidhatay doontii Nabi Nuux calayhi salaam. waa buur waagii hore ku taalay Ciraaq, gaar ahaan duleedka magaalada Mawsil, balse ay maanta tahay dhul ka tirsan Turkiga. waana arrinka aanu ku ogaanay baaritaan iyo diraasad dheer kadib, balse Ilaahay ayuunba og xaqiiqadeeda dhabta. ugu dambeyntii qisada Nuux iyo duufaankii weynaa waa sheeko mudan inaynu ku cibro qaadano, aynuna xasuusnaano mar walba awoodda Ilaahay iyo inaynu toobad keenno intay goor tahay.